jamacisay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وركيو كوبان gudida nashqadaynta dhulka ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta fadhi ay ku yeesheen magaalada Hargeysa ku joojiyay qorsheynta magaalooyinka dalka iyo fiditaanka caasimadda Hargeysa xayiraadna saaray beeraha la qorsheynayo. afayeen u hadlay madaxtooyada Turkiga Mr Ibrahim Kal ayaa ku dhawaaqay in dawladda Turkigu sii wadayso taageerada ay siiso xukuumadda Liibiya ee qaramada midoobay aqoonsan tahay inkastoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mr Faisal uu sheegay inuu xilka ka degayo. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jawaad Dariif ayaa ku tilmaamay maamulka madaxweyne Trump inuu ku dhaqmayo hab ay mas'uuliyad darro ku jirto oo ka baxsan xeerka diblomaasiyadda caalamiga ah. Taiwan waxay ugu baaqday Shiinaha inay dib uga laabato xadgudubyada ay ka sameynayso hawada Taiwan, arrintaas oo ay ku tilmaantay khatartii ugu sareysay ee wax u dhimaysa nabadda Shiinaha iyo Taiwan. kuwaasi dhegeystayaal waa qaar ka mid ah qodobada warkayga haatan u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. gudida nashqadaynta dhulka ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ay fadhi ku yeesheen magaalada Hargeysa ku joojiyay qorsheynta magaalooyinka dalka iyo fiditaanka caasimadda Hargeysa xayiraadna saaray beeraha la qorsheynayo. gudidan ka kooban xubno wasiiraha isla markaana uu gudoomiye u yahay wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Soomaaliland Mudane Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay kulankaasi kaga hadleen iyo go'aamo ay ka soo saareen. waxaana wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland uu sheegay inay hakiyeen qorsheynta magaalooyinka dalka marka laga reebo 4 magaalo oo kala ah Togwajaale, Gabiley, Laascaanood iyo Ceeri Gaabo, isla markaana ay joojiyeen fiditaanka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. waxaanu intaasi ku daray in aan dhismayaasha la dhaafin karin halka ay hadda marayaan. waxaa kale oo wasiir Qambi uu sheegay in dhammaan qorsheynta beeraha Hargeysa la joojiyo ilaa laga sameynayo qorshaha guud ee loo yaqaano master plan si degdeg ahna loo diyaariyo sidii loo hirgelin lahaa qorshahaasi guud ee caasimadda lana dhammaystiro wixii ka dhiman iyadoo gudidaasi ay fartay wasaaradda howlaha guud inay soo dhammaystirto xeerka iyo siyaasadda lagu maamulo dhulka. waxayna gudidaasi amartay maayirada magaalooyinka dalka inay soo gudbiyaan dhulkii danta guud ahaa ee hore u qorsheeyeen, dhammaanna go'aamadii hore ee gudidaasi ka soo baxay ay yihiin sidoodii hore. dhinaca wararka caalamkana haddaynu eegno afayeen u hadlay madaxtooyada Turkiga Mr Ibrahim Kalin ayaa ku dhawaaqay in dawladda Turkigu sii wadayso taageerada ay siiso xukuumadda Liibiya ee qaramada midoobay aqoonsan tahay inkastoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mr Faisal uu sheegay inuu xilka ka degayo. Ibrahim Kalin waxa uu intaasi ku daray in gargaarka Turkigu siiyo Liibiya uu ku qotomay heshiis ay gaadheen labada dawladood sanadkii hore kaasi oo ku salaysan arrimaha amniga iyo wax soo saarka khayraadka badda, isagoo cadeeyay inay wafdi sare oo ka socda xukuumadda Turkigu degi doono caasimadda dalkaasi ee Tripoli si loo adkeeyo xiriirka labada dal. geesta kale dawladaha Masar, Greega iyo Qubrus ayaa ku tilmaamay heshiiska dhexmaray Turkiga iyo xukuumadda Liibiya ee uu hogaamiyo Faisal mid sharci darro iyagoo ku sheegay in Turkigu ka faa'iideysanayo xaaladda cakiran ee waddanka Liibiya ka jirta si uu halkaasi uga sameeyo dhaqaale.
wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Dariif ayaa ku tilmaamay maamulka madaxweyne Trump inuu ku dhaqmayo hab ay mas'uuliyad darro ku jirto oo ka baxsan xeerka diblomaasiyadda caalamiga. Maxamed Jawaad Dariif waxa uu sheegay inay tahay dembi laga gelayo Iiraan iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Maraykanku ku dirqiyo xubnaha golaha ammaanka in cunaqabataynta dhinaca hubka lagu sii hayo Iiraan, iyadoo xukuumadda Maraykanku ku ajabaysay in dowladaha ku taageeri waaya ay tallaabo ka qaadi doonto. Hay'ashee dowladaha Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa qorshaha Maraykanka ka soo horjeestay, iyagoo sheegay in Iiraan ay fulisay tallaabooyinkii looga baahnaa isla markaana ay dhammaanayso waqtigii cunaqabataynta dhinaca hubka ee loogu talagalay Iiraan bisha Oktoobar ee sanadkan, taas oo aanay suuragalna ahayn in waqti dheeraada lagu kordhiyo cunaqabatayntii hore u saarnayd dalkaasi Iiraan. halkaad warkaas ka dhageysanaysaan waa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somaliland. wafdi sare uu hogaaminayo madaxa golaha militariga ee dalka Suudaan, Genaraal Cabdi Fataax al-Burhaan, ayaa labadii maalmood ee u dambeeyay ku sugan magaalada Abu Dhabi ee Imaaraadka Carabta, iyadoo halkaasi wada hadal uga socdo madaxda Imaaraadka iyo saraakiil ciidan oo Maraykan ah. wasiirka cadaaladda Suudaan Master Naasir Abdulbaari ayaa sheegay in madaxda Imaaraadka Carabta ay kala hadleen arrimaha waqtigan ka jira gobolka, gaar ahaan xaaladda Suudaan oo u baahan in xukuumadda Imaaraadka Carabtu ka caawiso dhinaca dhaqaalaha, halka ay saraakiisha Maraykanka kala hadleen sidii dalka Suudaan looga saari lahaa liiska wadamada taageera argagixisada. saraakiisha Maraykanka ayaa iyaguna dhankooda Suudaan ka doonaya in xiriir diblomaasiyadeed uu dhex maro Israa'iil, halka madaxda Suudaan ay ku doodisay in arrintaasi waqtigan aanay suuragal ahayn ee ay ka tashanayaan marka ay timaado dowlad ku timid doorasho guud oo ka qabsoonta dalka Suudaan, taasi oo dalkaasi ka dhici doonta sanadka 2022. madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu soo magacaabi doono xubinta ka dhiman maxkamadda sare ee Maraykanka dhammaadka toddobaadkan, isagoo u gudbinaya golaha odayaasha si ay u ansixiyaan. Master Trump oo ku sugan gobolka Ohio waxa uu intaasi ku daray in 5 dumar ah uu midkood u xulan doono xubinta maxkamadda sare si ay u bixiso jagadii ay banaysay gabadhii ka geeriyootay masabkaasi oo lagu magacaabi jiray Ruth Bader Ginsburg. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi Maraykanka John Biden ayaa isagu waxa uu sheegay in xubinta ka dhiman guddida maxkamadda sare ee Maraykanka la soo magacaabo wixii ka dambeeya doorashada madaxweynaha Maraykanka ee qabsoomi doonta bisha Oktoobar 3. haddii kale ay arrintaasi noqonayso in madaxweyne Trump uu adeegsaday awood sharci darro. ugu dambeynna Taiwan waxay ugu baaqday Shiinaha inay dib ugu laabato xadgudubyada ay ka sameynayso hawada Taiwan, arrintaas oo ay ku tilmaantay khatartii ugu sareysay ee wax u dhimaysa nabadda Shiinaha iyo Taiwan. wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wang ayaa ugu baaqay Shiinaha inay ku laabtaan ilbaxnimada kadib markii afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha uu sheegay in aanay jirin wax xuduud badeed oo u dhaxaysa Shiinaha iyo Taiwan ay ka mid tahay dalweynaha Shiinaha. diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha ayaa maalmihii u dambeeyay dul haadaya Taiwan, arrintaasi oo cadho weyn dhalisay, iyadoo ay Taiwan sheegtay haddii ay ka laaban waayaan Shiinuhu inay ku soo xadgudubka hawada Taiwan ay xaaladdu isu rogi doonto mid dagaal. warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somaliland, khiyaartayda sharafta mudan ee hawada naga dhageysanaysay waa naga intaasi.